الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله إلهي نكو حمدنينا إلهي سبحانه وتعالى نكو شكرنينا dhammaan meesha nagu soo wada kulmiyey dadka meesha wala imaadana dhammaan waan u mahadcelinaynaa waxaan u imaanayna wax kale maaha waa diinta iyo dacwada quraanka aan isku imaanay iyo taxfiidka ama madrasada waxaan xoojinaynaa wax kale maaha waa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa anaga adduunyo aakhira na anfacay ama qabriga nala galay meeno la soo joogo ma garanayno waa tan wa meelaha marqaatina noqonaya Ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala waa arrimahan wax yar insha Allah ta'ala wax laga hadlay ama rabaan inaan ku sii daro oo ay quraanka fadligiisa way quraanka fadligiisa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xadiis Uthman bin Affan suuri wuxuu leeyahay khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama dadka waxa ugu khayr badan ninkii quraan bartay dadkana sii baray xadiiskaas marka in la fahmo lagu dhaqmano waa muhiim inaan fahanno dadka inuu ugu khayr badan yahay ninka quraan garanay aan fahanno hadana macalinka quraanka inuu yahay dadka inuu ugu khayr badan yahay iyo ardayga quraanka baranhayo marka quraanka barashadiisa fadligaas uu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku sheegay iyo kan barahayo nin taabici waxa laga hayay inuu dhahay 40 sano waxa ii qaadatay inaan quraanka dadka baro xadiiskan daraadiisa way markasta aan doonaba inaan ka tago waxaan arkaa khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu nabi Muhammad dadka waxa ugu khayr badan ninka quraanka bartay dadkana baray marka waan sii wada ardaba mar marka macallimiinta waxa loo baahan yahay hadda iyo jeer inay soo dhigaan xadiiskaas ardaydana inay soo dhigaan dadka in ayaga ugu khayr badan yihiin ardada quraankana laazim ma dadka yarinay noqdaa dadka weynata haday quraanka garanaynin inay bartaan ala raba rag iyo dumarba dhamaan كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول له القرآن كآخرية ما أنت قيامة سجعني إيمان وني شفاعة قاضوة إلى أكتس سبحانه وتعالى وكودوده النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيده وكله حوله هل حرفه وهذا قطبه ويل كانوا آخرنا يكون جرته هل حرفه وكتابك إلهي نينك آخرية وحوله أجر طبعا لا الله رفنوه يعني ألف لام ميم وكل هذا مركز لفيريه وصدن أجروه ألف لام ميم سدح داس وصدن أجر قفك وقرنوه marka quraanka dhamaan min suurat al-Fatiha baqara sooman ilaa birbinas intaad ka gaari hadaad akhriso amisa xaraf oo mar oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maagta agtiisa ajir aad ka heli way arrimahaas marka inaan ku fikirno la raba carabka inay u badato la raba waxa inta badan carabka ina soo maro wax barin anfacay inuu noqdo la raba Ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala xujo noo noqdo noo doodo oo xujo haduu nagu noqdo quraanka marka intaan barano tuurno ama aan ku amal falin Ilaahay xaqiisa uu naga qabsada waa una nala dooda maalintaas way wiilka marka khudbadu akhriyo waxa kamid ah dadka quraanka bartay waxay isku darajo yihiin malaa'ikta qofka quraanka bartay oo laakiin dhibhayo akhriskiisa xoog isku dhibhayo inuu bartona laba ajir buu leeyahay ajirka akhrisku quraanka akhriyay iyo ajirka wuxuu leeyahay hadana midka labaad dhibkaas ka soo gaarayo dadaalkaas uu bixinayo marka qofka quraanka inuu barto looga baahanyahay yar iyo weyn ba insha Allah ta'ala waalidiinta marka sidoo sheekh bahada uu sheegay wiilkan xadiidkaas uu tilmaamay ninka quraanka intuu barto ilmihiisana baro ninka ilmihiisa quraanka baro taaj baa loo xiraawe taaj koofiyada boqorada adduunka tu ka weyn ka quraxsan ka dhalaal badan ka aftiin badan baa loo xiraa jannada waalidka maryahaas markii loo xiro wuxuu Ilaahay weydiin maxaan ku hel sababta Ilaahu maxaan ku gaaro waxa Allah wiilkaada ama gabadhaada ilmahaada quraan bartay marka ilmaha quraanka hadaan barno anfacaas adduunyo aakhiruna la socdaa wakadalika waxaan nogala baahanyahay marka adduunka ilma Ilaahay subhanahu wa ta'ala ninku siiyo waa nimca ilmahaas hadaad dhaafto adduunka ayaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa kala shafaaca qaadayn oo maalintaas qiyaamo ku doodayaan fadligaas badan aad ku heli waxaad kale aan ku gaarayna ilmaha waladun saalix yad'u lahu nabi markuu leeyahay ninka haduu dhinto wuxuu dhaafay waxa kamid ah ilmo wanaagsan oo u soo duceeyaan cunugaad quraanka bartay oo ku dadaashay waxa way Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uga baryaynaa had iyo jeer inuu noqdo walad saalix oo ku soo duceeynay qof kastaba oo ku iloobaynin in marka waalidiintana ilmaha ay u duceeyaan la raba Ilaahay subhanahu wa ta'ala u baryaan inuu toosiyo u hagaajiyo ducada tawfiiqda Ilaahay baa iska laha gacantiisana arinta ku dhamaan ku jirta ilma Ilaahay in loo baryo la raba hawaarka in laga ilaaliyo carabka wax wanaagsan waalidiinta inay u soo maraan la raba hadaan meeshan u soo noqono madrasada ama tacliinta meeshan ka socoto waa taxfiid iyo tacliin kala way la socotaa sababta ilmaha waxay akhrinayeen baa ka garanay in marka la garab istaago loo baahan yahay magaalada way weyntaan u malay intaas oo tacliin baa ka furan marka in la garab istaago loo baahan yahay ama ha noqoto madrasada dhismadeeda ama ilma keenisteeda ama macallimiinta joogan oo la garab istaago oo la garab tirin sababta diinta qof kale u taagan male idaarada u taagan male hay'ad u taagan oo maamulaha Soomaaliya waa waalidiinta iyo muslimiinta way
nin kastaaba marka waxaa la rabaa ilaahay agtiisa waxa aad geysato ood ilmahaada aad ku bixiso maan ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waad ugu tegi nacam waxaa kale tacliinta 3 tiir way la dhaha sida saddexda dhagaxa oo eelaha lagu kariyo ama dheriga lagu kariyo sidaas ay tacliintana tahay dhagax waa waalidka dhagaxna waa ardayga dhagaxna waa macalinka haddii eelaha laga hosbixiyo dhagax maxaa uu daadan uu dhacaw dhinac uu dhacaw haddii marka waalidka uu meeshiisa ka soo bixi waayo tacliinta nusqaan bay noqon haddii macalinkii la waayoba oo ilmihii waxba baraynin meesha waxaa laga baran wax soconaya ma leh haddii ardaygu uu imaanayninna waa mawduur galay ama nagaashadiis badato tacliintaasana uma soconayso laakiin saddexdaas markaa isqabsadaan oo isku xirnaadaan waalidkii macalinkii ardaygii tacliintii way dhalay insha allahu tacaala sidaasaan rajaynaynaa waxaa kaloon isku dardaarmayna dad muslimiin meel iskula imaadaanan inaan isacfino had iyo jeer meel isku soo joogo lama ogo geerida qaflada inta badan way badatay aad maqashay nin kastaaba wixii geeri oo dhacay inaan iscafino la rabaa oo qof kastaaba qofka muslimka ee wax alla wuxuu kuu geystay cafi xalay muxaadaraan ku jiray waxaan soo maray nin baa dheer gaaray cimrigiisa 120 jir maxaa ku gaartaa la dhe xiqdi waligay kuma baryin u dhe asbaabta cimriga dheer lagu helay kamid tahay inay xiqdiga iska bixiso nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam noo sheegay ilaahina quraankiisu noo sheegay fadliga arintaas ay leedahay aw islaahin bayna naas ilaahi markuu ka hadlay had aayada ودقنو تفسيري مصلحات ددك لا دحجيو إلهي والصلح خير بوده مصلحات ka khayr badan dadka inaan dhaxdoodan ka shaqeyno inaan isku dirno inaan kala fiijino inaan kala erino maaha muslimiinta in isku keenaa la rabaa qalbigooda isku duubaa la rabaa in lis cafiya la rabaa xiqdiga iyo qilliga iyo xasidnimada arrimaha isku dirmaan la iska bixiyo la rabaa kadalika inaan isku duceyno la rabaa dad muslimiin baanan ducada dadka haday isku duceeyaan ducadooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku aqbala ilmahaasaan ugu duceynayno dadka kale waalidiinteena u duceyno muslimiintaan u duceyno nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay qofka walaalkaada muslimka markaad u duceyni malaga in ka taagan wuxuu ku leeyahay waxaad baride aamiin waa laga ajiibay ninka walaalkaada waxaad ugu duceysay adigana mid lamid aad leedahay intaad ugu duceysay adina waa lagu siin asagna waa la siin marka inaan isku duceyno insha Allah ta'ala ma sii dheereynay inta salaam wa sallallahu alayhi wasallam ala nabiyina wa alaykum assalam wa rahmatullahi mudiirka waa maasan yahay khayr Allah siiyo si fiican u hadle marka hadalkiisa kuma sii noqonayo waxaan soo dhaweynayaa suldaanka magaalada Chief Idris oo kalimo yar noo jeedinayo ka gadaalna wuxuu noo soo dhaweynayaa dhiyooga magaalada fadal shaqo أنا وإدريس عبد القادر حسين Chief Sangaylo hadalkii masii dheeranay maanta farxadda meesha ka muuqato ma arkaysin ilmaha akhriyo arkaysan quraanka maadaama meeshan madrasada Sangaylo halkan noo furantay ilmahayna horaan maxaa jireen ilaa masalani ilaa gaaris aan waa jirna samo laakiin man maxaa arkaysin halkan qan jibin halkan lagu siinayaa xashimo certificate-kooda halkan lagu siinayaa shahaadadooda waa farxadin leeli karin ma sha Allah farxadin leeli karin way anaga hadda halkii masiibadinay maaridiinta odayaasha culimadiinta maxaan iga barayaa ilmaha xaafadaha joogan ilmada xaafadaha joogan halak keeno quraanka waa educationna cilmi diini iyo mid gaar oo kii asaasiga waa cilmiga islaamka cunuga quraanka barta iyo cunuga quraanka baranay isku lageeyo iska hatta imtixaanka galaan isku lambar ma keenan ilmaha madrasada mise dugsiga soo bartaan waa u horeeyaan maxaan ugu baraarujinayaa adeerayaal ilmaha inta la keeno dugsiga gabdhaha cidiska joogaan la keeno ilmaha inta ay raacayaan haddii nafaas loo karo la keeno aqara lagu wejini cunugan maanta maxaa bartay maxaa soo bartay abiy xumay soo baranulay laakiin dugsiga intiisa mise quraankiisa maxaa ahane saatan ka bixi mid kale niga codsanay maxaa waaye Sangaylo weynaatay horumartay aan gacantaas qabsano hal ruux hal gacmo hal leh waa jira xogeen samo soo Sangaylo madrasad alxamdulillah ilmahan keensano maanta duweynaha dhanaa arkay wixii ilmaha meeshan ka baxeen qalan jibeen 6 gabdhood 4 wiil ma sha Allah so maxaan soo dhaweynaa chairman karibu na kukaribisha kwa ongea kidogo Ingiriis ku hadal wax yar
Karibu bro. Good morning to you all. I'm grateful for this. I'm grateful to be honored to be given this opportunity, at least to say a word. But before I do so, I return my regards to the Chief Kadhi, the Chief, all the religious leaders and teachers who are around, the old men who are around, and the mamas at the back for at least gracing this occasion and taking good care of our children the far they have reached. Other than the education that we are being given at school, the religious education is more important, more than that we get at schools. So I urge each and everyone to at least emphasize on the education, on the religion, so that these children of ours can grow while knowing God is above everything. Otherwise, I say thank you. I'm new at this place. I'm trying to learn each and every bit of the community, and I think we are going to work as one people. Otherwise, thank you and welcome. bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin u mahadsan yihiin jiifka iyo dhiyooga hadleen. Waxaan gudagalaynaa ardayda qalinjibise oo qur-aanka kariimka ku qalinjibiyeen oo la guddoonsiin yahay shahaadooyinkooda yaan u yeerayaa zawaadooda. Marka waa 10 canug sidii la soo sheegay, 10ka canug marka inay noo imaadaan rabnaa. wiilasha soo hormaraan cabdiraxmaan xasan cabdisalaam ياسين كيفك فين انتوا جيستا؟ كتاب قرأ.